بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. galabtana waxaan wadaagi doonaa noocyadii guurkii hore ee Soomaalida. waa 10 nooc. mid waxaa la yiraahdaa isasiin, waa in labada waalid ay isu gartaan ubadkooda inay isku daraan. midna waxaa la yiraahdaa geed fadhiisi, oo ah kaymka wacaanka ah ee ninku marka uu doonayo gabadh inuu guursado inuu reerkooda ka doonto. inta badan geed fadhiisi waxaa loo yiri maadaama geedku ahaa halka garta iyo guurka iyo guddoonkuba ka dhaco, sidaasuu magacu ugu baxay. waxaa kaloo jira mid la yiraahdo dani kubadday. dani kubaddaydu waa dumaasha. dumaashu waa marka ninku dhinto in nin kale oo ay ninka walaala yihiin amba ilmaadeer yihiin gabadhii la siiyo. Soomaaliduna waxay tiraahdaa dumaali waa dabar carruureed. dhaqan ahaan dumaashu way yara adagta, oo gabadhana waxaa maskaxdeeda ku sii jira xasuusaha ninkii hore. ninkuna wuxuu u arkaa inay tahay gabadh wanaagga uu samaynayo qarinaysa. malahayga nin bay gabadh dumaalay muddo haddii ay wada noolaayeen, dhagihiisa waxaa ka batay ammaanta ninkii hore iyo xaqiraadda ama yaraynta waxa uu qabto. kolkaasuu yidhi walaalkaayoo dhintayna wax loo faana maaha, gabadha hadalkeeduna wax loo adkaysta maaha. sidoo kale waxay Soomaalidu tiraahdaa dumaal ninka xishood ah kama ilmo dhalo. wuxuun baana wadi kara inuu dulqaata oo ka gaabsada, kuna dadaala ubadkii uu adeerka u ahaa ee hayse iyo kuwa alla ka siiyaba inuu wada dhaqo si fiican. gabyaal la odhan jiray Yuusuf Barre ayaa maruu dumaasha guurkeeda diidanaa wuxuu yidhi, ilmaheedu haddii uu si uun u qaldamo oo waalid baad u tahay oo xil baa kaa saaran inaad istiraahdo basri, waxaa kaa raacaysa wari. waa kii lahaa dumaal gaban leh gaayaa tuflay waa maskeed galayee haddaan wiilka guulguulo way igu gahaadoone, waa gooldhashii haysatee guuran kala aado. waxaa ka mid ah hababka guurka xigsiisinka. xigsiisin waa xarig carruureed baa la yidhi, waa kolka ay gabadhu dhimato ayaa ninka waxaa loogu beddelaa inanta walaasheed amba cid kale u dhow, si aan carruurtaasi aanay u dayacmin oo aanay gacan kale intay ugu dhacaan hadhowto dhibaato iyo luuf nololeedaanay u marin. afartaasay noogu joogaysaa, inta kalena waa inuu maalin kale haddii alla qadaro.